qofna uma qalmo ilintaada haddii uu jiro si qof u qalma marnaba kuma ogolaadeen inaad ilmayso. marka aad ka gaabiso hirgelinta hadafyadaada waxaa ku shaqaalaysiin doona qof si aad uga caawiso rumaynta riyooyinkiisa. ha ku kalsoonaan mar labaad haddii ay saaxiibbada ama jacaylkaagu ku qiyaamaan, balse ku kalsoonow in iyaga la'aantood aad noolaan karto. ilmada ugu xanuunka badan maaha tan indhahaaga ka timaada ee daboosho wejigaaga, ee waa tan ka timaada qalbigaaga ee daboosho ruuxdaada. farxadda lacag laguma iibsan karo, laakiin farxadda aynu raadinaynaa agteennay taallaa. walaal, haddaad kitaabka qur-aanka akhrisato farxadtan ugu weyn baad helaysaa. waxaa jira dad maal fara badan haysta haddana aan faraxsanayn. waxaa jira dad faqiir ah haddana farxaddu ka badatay. ma jiro qof dhammaystiran, balse qof waliba waxaa u muuqata inta yar ee uu ku xun yahay. hadallada dadka kale ku leeyihiin mar kasta dhinaca wanaagga ka eeg, koontarool carabkaaga, waayo kelimad kastoo kaa soo baxda waa la qorayaa. dadka kuwa ugu ilinta dhow waa kuwa aanan sharaxi karin waxa gudahooda ku jira, macnaha qalbigooda. ma jiro qof adiga beddelkaada kuu xanuunsanayo, haddaba qalbigaaga ilaasho. ha ka cabsan faqri, waxaad tahay addoonkii allaha qaniga ahaa. guushu waa mid keliya, waana adeecidda allaah iyo adeecidda rasuulka sala allahu calayhi wasallam. marka ogow inaad mar kasta tahay mid guulaystay haddaad muslim tahay. qiimay mar kasta waalidkaaga si adigana laguu qiimeeyo. haddii aad shaqaysato lacag ayaad helaysaa, laakiin waqti ma helaysid. haddii aad waqti heshana lacag ma helaysid. u shaqayso si xalaal ah, alla ayaa kula jira waxaad ka baqaysaa waxaan loogu talagelin in laga baqo, laakiin waxaad ogaataa in adduunyada loo yimid in aad imtixaan gasho. noloshuna waxay farxad ku siisaa marka aad waqtigaaga ka faa'iidaysato. ha aaminin waxa lagu yidhi aamin xaqiiqada. ha ka baqin fashilka, waa guul iyo cashar aanad ka baran karin jaamacadda adduunka ugu qaalisan. ha dareemin xanuunka ee dareen caafimaadka iyo farxadda, maxaa yeelay waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada. carabkaaga ilaali, dadkuna way ku ilaalin. qalbigaaga iftiimi, waxaad awooddaa inaad qalbiyo kale iftiimiso. dhoolla cadday si ay dadka murugaysan u farxaan laguna jeclaado. nolosha waa qofba siduu u moodo, maxaa yeelay dadka qaar baa jecel kelinimo, qaarna xiriir. haddaba adigu sida aad u mooday ayay noloshaadu tahay. qofna ha ku daysan ilaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisii. adiga nasiib ayaad leedahay, maxaa yeelay muslim ayaa tahay. waxaad og tahay inay jiraan naar iyo janno, haddaba dooro waddadaada, maxaa yeelay noloshaada ma ogid idlaanshaheeda. naftu waxay jeceshahay xumaanta, laakiin waxay raaxo ku dareentaa cibaadada. dhoolla cadday, qofna ha colaadin, maxaa yeelay waxaa jira cadow aanan nasan, jecelna jabkaada waa shaydaan. nafta ku qasab diinta, horumarka ayaa kuu imaan doona. hana dhibin qof iska kaa nacib. qofna weligaa ha quursan, sababtoo ah ma ogid awoodda u qarsoon. ka dhig qalbigaaga sida webiga oo kale, hana u joojin dadka raba inay ku dhaawacaan. allah subxaanahu wa tacaala waa abuuraha noolo kasta, waana midka arsaaqa. wax kasta oo dunidan ku dhacana alla amarkiisa iyo qadartiisa ay ku socdaan. haddaba waxaa inagu waajib ah inaan u hoggaansanno allaah oo aan rumayno mar weliba.